السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مركورة دمان ولا Soomaaliyeed halkaan iga daawanaya meel walba joogtaan iyo si walba in maqleysaan waxaan muuqaalkan ku soo gudbinayaa dhowr arrimood oo kala duwan waxaan marka hore dul mari doonaa waxyaalihii ugu dambeeyay qarxi ka dhacay Zobe waxaan kaloo ka hadli doonaa madal lagu bedelay baarlamaankii dalka oo la wareegtay awoodii dalka oo dhan 7 ilaa 9 nin ayaa la wareegay awoodii dalka oo dhan waxay rabtaa waxa noqoto maxay ku heshiiyeen maxaa lagu midoobay maxaa ka soo bixi kara asagu u badan doona falanqaynteena qaybta ugu badan waxaan kaloo finally ka hadli doonaa reer galbeedka oo aan raali ka ahayn ba in al-shabaab laga adkaado ayadana meel baan ka tusi doonaa intaas u daaray muuqaalkeena soo dhawaada meel walba joogtaan haddii aan ku bilaabo qarxi ka dhacay Zobe ugu yaraan 120 qof in ka badan ayaa ku dhimatay inta la xaqiijiyay waxaana jira dad kale oo aad u fara badan oo missing ah ama la laayahay oo aan geeri iyo nolol midna lagu hayn wali marka way soo badanaysaa dhimashada dadku marka ku dhintay inta hadda la hayso far 120 qof weena ka badan kartaa dhaawacu runtii waa tirabeel ilaa iyo magaalada oo dhan ayuu meel walba ka yaala xaafadahana si baan ba loo geeyay isbitaaladana si baan bay u yaalaan Allah caafiyo inta dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxaasi waxaan ilaa iyo hadda aan jirinin talaabo ay dawladda ka qaaday oo dadkaasi dhaawac ah ee soo gaaray dhaawacyada baan cid ilaa iyo hadda dibadda u qaaday oo isbitaalo u raadisay ma jiraan guyahooda iyo isbitaaladii magaalada bay yaalaan sidii aynu ku naqaanay cid arrinta qabatay ma ay jirto waxa kale oo runtii la yaab leh oo aan wali fahminin ilaa iyo hadda ma ay jirto dad loo soo xirxiray qaraxaasi oo baaritaan ah oo la sameeyay ilaa hadda ma jiraan sidoo kale ma jiraan saraakiil shaqadoodii ku weyday qaraxa oo musiibada ah ilaa iyo hadda ma jiraan waxa loo yahay in checkpoints soo mareen waxa loo yahay in la soo dhaxmarsiiyay qaybo ka mid ah ciidanka dalka laakiin ilaa iyo hadda isla xisaabta noocaaya oo dhacay ma jiro cid xil laga qaadana ma jirto cid loo soo qabtana ma jirto hawlgal ay dawladdu sameysay oo xataa oo laga daba tagay oo lagu baarayo al-shabaab magaalada ku jira xataa ilaa iyo hadda ma ay jiraan sidaas oo ay tahay ayuu madaxweynihii dalka isaga tagay oo uu aaday dalka dibadiisa muddo laga joogo ilaa 10 maalmood baan idin sheegay madaxweynuhu inuu aadi doono shir ay isugu imaanayaan dawladaha Carbeed oo ajandaha looga hadlay uu noqon doono qadiyada Masar iyo Ethiopia madaxweynuhu waa iska tagay ummadii oo musiibo dhaxtaala ayuu madaxweynuhu ka tagay ma jirto talaabo la qaaday arintaasna halkaas taala waxay muujinaysaa marka ama dhinta ama noolaada cid shuqul idin kula ma jirto waa waji malihi oo toos way hadalka madaxweynuhu u baxay qodobka inta sano uga baxaya wixii kale oo ka soo bax kulli ma arkaynaa arro inaan ka hadlo madal baa la sameeyay madashan hadda la sameeyay ma aha markii ugu horeeyay ee la sameeyay taaramkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo uu dalka madaxweynaha ka ahaa sidaan oo kale to madasha maanta la sameeyay oo kale waa la sameeyay sawirka halkan yaala markaad fiirisaan wad arkaysaan ragga meesha dhooban madashaasi waxay ahayd madal lagu bedelay baarlamaankii dalka oo awoodii dalka oo dhan markaas xambaartay labadii hay-adood ee dalka ugu sareeyay baa la isku jamciyay hal baa laga dhigay hadda laakiin intii waa laga badiyay waa hay-adii sharci dejinta iyo hay-adii fulinta iyo hay-adii kaleeto iyo hay-adihii kale ee dalka jiro dhan baa tal isku jamciyay baa 9 nin waxa laga dhigay inay markaas yihiin madal ayaga go'aan ka gaaraya dastuurka go'aan ka gaaraya amniga go'aan ka gaaraya heshiisyada caalamiga ah go'aan ka gaaraya talaabo walba heshiiska rabaana galaya isla markaasna wixii ka soo baxay iyaga waxa ay leeyihiin ay markaa noqotay waa maxay markaa qorshaha ay madashan loo sameeyay ayaan ku bilaabayaa falanqaynteeda qorshaha ugu horeeya oo madashan loo sameeyay waxa weeye kow waa in baarlamaanka awoodiisa hoos loo dhigo oo talo walba oo la doonayo in la fuliyo heshiis walba oo la doonayo in la galo in 9 kaanin ee halkan ka muuqata marka ay galaan oo aan baarlamaan loo baahan taa waa qorshaha ugu horeeya qorshaha labaadna waxa weeye in dhaqaale laga sameeyo oo mashruucyada kuwa shidaalka ah iyo kuwa kaleeto iyo saldhigyada la siinayo dawladaha Carbeed iyo dekedaha la iibinayo in qorshayaashaasi markaas ay 9 kaanin ka fariistaan oo ayagu ay ka heshiiyaan lacagta ka soo baxana ayagu ay kala qaataan ka bacdina sida lagu soo codsiiyana waa qorshaha labaad qorshaha saddexaadna wuxuu noqonayaa marka in la sameeyo muddo kordhin guud oo maamuladaana loo kordhiyo madaxweynaha dawladda oo haddana aan hataa 5 bilood jooginina muddo kordhin sameesto waxaan arki jiray muddo kordhin la sameeyo markii xilku dhamaado laakiin muddo kordhin la bilaabayo iyadanba hataa hal sano aan la jooginin waa la yaab laakiin ajandayaashii ka mid tahay in muddo kordhin maamulada loo sameeyo dawladda dhexna marka ay sameysto oo meesha la iska sii joogo intii muddo
finally waxa kale oo qorshuhu ka mid yahay in dastuurka dalka sidii doon laga yeelo wixii doon laga bixiyo wixii doon la geliyo wixii rab laga sameeyo arrimihii jimsiga iyo waxa ay dhan lagu daro wixii la doonayay laga bixiyo ayada markaas la isticmaalayo awoodda 9 kaanin ee lagu soo koobay dawladnimadii dalka oo dhan waa maxay faa'iido ugu jirta xasan sheekh maxamuud inuu waxa sameeyo waa maxay faa'iido ugu jirta inay maamul goboleedyadu ay sida sameeyaan way su'aasha kale isweydiinta mudan xasan sheekh maxamuud dan ku bilaabo حسن هدي وبرلمانك إسكا حرو وحماشا وكهليا accountability حسن ما جرتو عيد برلمانك وغير يسي موشن وحا ما جريان حسن و freedom مركا number 1 advantage بيوتا accountability باشا ما جرو مدى لما دحاوية رئيس الوزاري سي حكومة دي سفشل والبا او كي مادا ايقونا عيد موشن كيريسا ما جرتو ماشا إسكا شوغيان وزيرك أمنيقا نكي اللي وشيغي عيد بقاشي ما عرفتين عيد الشارتة حتى ما عرفتين مالو جرو هذا الكيس ما عرفت حتى وجهي ما قرنا قيب دارنا إننا جميلة ميلو شرع عد قرنا سامجرتو مركا وعد والبوا أساق الله سعوتا حكومة دي سكمت كاه وفري وي أساقون وفري قرح والبوا اللي جيستو عدو ما عيريو وزير كله ما يريو سؤال لما ويدينيو وفري دوم بحسنيا قدب كست حد وحوي أرفانتيجا وحسن يكوحدي سيكهليا ونقال أروسي نقال بدن بسوق قليا ميل والبا كوربشن باكسوق قليا lacagahaasi waa la qaybsanaya marka dhaqaale badan baa jeebka galaya nima dhaqaale badan arursa ay noqonayaan oo taramkooda runtii ka faa'iideysto si fiican u shaqeysta afar muddo korina way helayaan oo muddo badan bay sii joogayaan inta ay doonaan bay joogayaan maadaama muddo korinta la sameeyay ayaguna qayb bay ka noqonayaan finally xasan advantage-ka uu ka helay waxa weeye buuq kaga imaanaya maamul goboleedyada iyo wasaaradaha iyo baarlamaanka iyo meel kale ma jirto shacabkana cid dhageysanaysa ma jirto وهالكي وكأورن شري الصومالي هالشيء عالم كل شيء لا عالم كانوا واحد دنيا بالستينيات ذات كهالشيء كلا وشيء حسن وسجال كأني أسجع أي هالشيء كوا إن ذاك أي واحد دونا كصبيان أي ده سوى هلا يمركه ما ملضم حكي هلا يعني هذا نقول بالله بس عيد عبد الله الدنيا إكستنشن مهليه سيستم جاء بدلا لسنت هاي مع سيستم إكستنشن لقى سامين كار لكن أسوق مهليه مهليه دقالة بدن بوهليه أو دورشة وكوجلت ليل والبو وكوقادنا يا العقب وكوقادنا يا أما بلدان ها قابل سنة أم يوسف قابل سنانين هالشيء هذا كوست اللي أنا لاقي بلدان شغل كمالهن ملها لاقى جدنا يبلغ حكم الجبلان يكون فرق البيت يمشي له يقانو يقل مدوقوي سيدا درادد قيب كقادر يا ديل والبا العاقة كوست اللي قاتنا قيب وكقادر يا سعيد المركا intaan uu joogo dhaqaale badan buu helaya marka saabo la qayliya Saciid ma jirto lafta garan asaguna muddo kordhintii lagu haystay baa xalal u noqonaysa cabsi ka jirtay nanka Xasan Sheekh Maxamuud weerar looga soo qaado oo maamulkiisa iyo xilkiisa lagu qabsado asana meesha ka baxaysa dhaqaale badan uu helaya asaguna meeshaas subarka ku naaxaya freedom buu ku helaya asaguna qorqor iyo cali guud laba iyaguna muddo kordhin bay helayaan dhaqaale helayaan wax walba oo maamulkooda ka dhacay al-shabaab walba ay qabsadaan maxaa la yiraahdaa cid mutaqaana u tagaysa ma jirto xilkoodana way sii joogayaan soo marka cid walba waa win sagaalkan meesha isugu timaaday waa win cid walba marka waa happy cid qaylisa ma jirto muuqaalkii ama sawirkii hadda kor aan idin la wadaagoon idin nimanka maxay la qoslayaan dadku siyaabo badan bay u falanqeynayeen laakiin maanta aynu fahmayna waxay la qoslayeen waxa weeye waa win cid walba waxay helaysaa marka advantage bay helaysaa dhaqaale helaysaa muddo kordhin bay helaysaa raaxay helaysaa xilli ku fiican oo dhaqaale ku arsan kan way helayaan dalna cidna shaqo albu kuma aysan lahayn dhanka kale markii aad si dhab ah u fiiriso waxaad arkaysaa in maamul goboleedyada waxa soo advantage Xasan ka qaadanaya ama faa'iido oo ay Xasan ku haystaan haddana il gooni isaga fiirinayaan markii aad fiiriso heshiiskii shalay soo baxay la yiri madasha wada tashiga qaran ayuu ka soo baxay markii aad si dhiib ah u fiiriso waxaad arkaysaa inay ku dhex jirto inay ilna Xasan isaga fiirinayaan ilna ay heshiis la galiyaan oo ay dhaqaale kaga qaadanayaan waxyaalaha keenaya inay iska fiiriyaan waa cabsi ku jirta waxyaalii ay hadda joojiyeen waxa marka kamid ah in hawlgallada al-shabaab ay noqdaan kuwa lagala tashado iyaga oo lagu sameeyo waxa loo yaqaan strategy good in marka hawlgallada loo sameeyo in sidoo kale la joojiyo dhismaha ciidankana qayb bay ka tahay walow aan waraaqda lagu soo qorinin laakiin haddii aad si dhab ah u akhriso aad fahmi karto sida erayada la isugu aadiyo waxaad fahmaysaa inay ku dhex jirto inaan ciidan dambe oo Soomaalida aan la dhisi doonin iyo in hawlgalladii Sacuudi ku yihiiraan ku shabeellada dhexe waxay dhan way istaagayaan waayo waxay u baahanayaan in wax laga weydiiyo cali guud laabay u laabanayaan maadaama la yiri waa in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay heshiis ka galaan hawlgal walba oo la sameeyo oo strategy good mataqaana ama qaran la sameeyo
markii la samaynayana waa in guddi loo soo saaraa guddigaasoo ka kooban maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa la dagaalanka al-shabaabka waxaa la doonayaa in laga fariisto markii dagaal la qaadayo isla markaasna guddi loo xulo guddigaasoo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ka socda markaa ka bacdi baa haddii lagu heshiiyo dagaal la qaadi karaya inta ka horreysa wax dagaal la qaadiya ma jirto macnaheedu reer hiiraan hadday hore uga qaylin cali guudlaaw waxay hadda ku qasban yihiin inay cali guudlaaw hoos tagaan waxaa sidoo kale meesha ka baxaya mashruucii lagu taageerayay macawisleyda waayo hub iyo dhaqaale iyo budget iyo amar la siin doonaa ma jiro cid ka baxsan ciidamada dowladda iyo kuwa ay maamul goboleedyada ay leeyihiin sida heshiiska ku xusan waxaayoo dhan marka way istaageen waxaad marka arkaysaa in howlgalkii la doonayay in la yidhaha al-shabaab baa lagu qaadayaa gebi ahaanba wuu istaagayaa ma arkaysaan marka maxasan baa lagu cadaadiyey oo maamul goboleedyada diidanaa oo ku cadaadiyey mise asaga maxaa la yidhahdaa qaab dagaalkan uga baxo ayuu la-aaya wuu ku fashilma ma garanaya midda ay tahay sababta keentay laakiin gebi ahaanba markaad waraaqda akhriso waxaad arkaysaa in dagaalkii lagula jiray ururka al-shabaab uu istaagay baad arkaysaa istaagayo markaad heshiiska fiiriso waxaa la isku imaan doonaa December bisha dambe ee nagu soo aadan waxaa laga wada hadli doonaa sidii arrimaha looga tashan lahaa inta ka horreysa marka cid tilaabo qaadi kartaa ma jirto waayo tash bay u baahan yihiin baa la yidhi oo maxaa tash u baahan waa al-shabaabka la dagaal tash u baahan baa ma arkaysaa taas marka ayadana waa allaha arusho arrintaani maxay dowladnimada Soomaaliya u keeni kartaa way su'aasha ugu dambeeyay intaan qodobkan aan ka bixinin markaad meel walba ka istaagto arrintaani iyo heshiiskani iyo madaxshan iyo waxaan la sameeyay waxay dhabar jab ay ku tahay dowladnimadii Soomaaliyeed oo aynu dhisaynay waxaynu jab ku tahay hamigii aynu ka qabnay dalkan dowladnimo ka timaado oo dhan baa burburaysa waxyaalaha ugu horeeya oo imaanaya waxa weeye heshiisyada lagu heshiiyay ee batroolka iyo waxaan la galayo waxay dalka u horseedayaan runtii inay istaagto deen cafintii waayo wax walba oo aan transparency ahayn ama aan daahfurnayn oo heshiisa waxay dhibaato u keenayaan deen cafintii waayo deen cafintii waxa loogu talagalay inay ahaataan mashruuc daahfuran waxay kaloo inoo keenaysaa hubka xasan uu qaybinayo qabaa'ilada iyo meelaha qaldan la geynayo aan maxaa la yidhahdaa la tiri koobinin oo aan la gelinin baqaradii dowladdu ay lahayd oo hadda la sheegay inay reer galbeedku baaritaan ku hayaan ayaduna waxyaalaha inoo keeni karto waxa weeye 3 ilaa 4 qodob oo ka mid ah chapter 7 oo laga guray dowladnimadii Soomaaliya 5 sano soo dhaafay baa dibna loo ku celin doonaa qodxana laga bixi baa dib loo ku mudi doonaa maadaama aynu dib ugu laabanay waxaynu ka tanaasulnay mar hore waxa kale oo meeshan ka imaan doona in ciidan badan AMISOM la keeno ay mashaariicdii iyo qorshihii AMISOM iyo African Union ka dhaqaale ku sameeyeen asna dib loo soo xoojiyo waxaynu arkaynay labadii asbuuc oo la soo dhaafay in dowladda Kenya ay tababarayso kumanaan askari ee tababarayso isla markaas la doonayay Soomaaliya la keeno si ay ugu biiraan ATMIS oo dhaqaale looga sameeyo waxay ka naawulaysaa in sanada soo socda lacagta Soomaaliya laga qaatay ciidamada dowladda Kenya oo dhan marka ay ka fargarayaan Djibouti kuwa kale ayagana waa sidoo kale arrintaasna dib baa loo soo xoojin doonaa maadaama ciidankeena uu sii fashilmayo damo ciidankeena la jijabiyo damo ciidankeena la soo riixo damo ciidanka qabaa'il loo kala qaybiyo hubka al-shabaab gacanta u galiya al-shabaab soo xoogaysanaya waxaana marka la barmood garaynaya kor loo qaadaya markaasi in ciidan badan AMISOM dalka yimaadaan dhaqaale ku qaataan kaamara halka finally markaad si ciidana dhabaad u fiirso reer galbeedku raali kama al-shabaab laga adkaado waxaan aaminsanahay oo aan tuumaya in reer galbeedku doonayaan Soomaaliya in sidii Afghanistan ay al-shabaab la wareegaan 3 sababood baan idinku tusayaa in waxa ay doonayaan reer galbeedku midda ugu horeysa waxa weeye madaxdii al-shabaab ee al-shabaab ka soo baxday dowladda Soomaaliya inay ku biiraan reer galbeedku raalli bikay Axmed Madoobe Robo Mansour hebel you name it kuwa jira haddan isku haysto oo la doonay imaarayaal loo isticmaalo oo dowladda lagu daro oo Mahad Salaad iyo Xasan ay doonayeen oo lagu dhagan yahay baa jiro ka bacdina ay la carreen haddii marka dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo dowladahaasi ay ka dhab tahay in argagixisada la dagaalaan waxa ay dhan weydiidi lahaayeen oo say u diidayaan waxa jira dad marar badan bay sameeyeen dowladihii ay faraha kula jireen Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhan waxa ay ka u diidi jireen laakiin hadda inay ogolaadaan waxa ka dhax muuqata inaysan al-shabaabka ay waysan dhibaato u aragba in dalka qabsaan inaysan wax dhibaato u aragba markaysan waxa jira dad caalamka jira oo Soomaali ah oo wadaada ah oo hal hadal bay yiraahdeen dartood loo saaray cunaqabatayn Mareykanka looga tahriibiyay xabsiye la geliyay waraabod nimanka al-shabaab ku jira oo sharciye haysta oo adduunka freedom ku jooga oo cid la hadlaysa is jirin waa maxay difference u dhaxeeya Sheekh Hebel oo la xiray oo la cayriyay oo wixii lagu sameeyay because hal hadal buu al-shabaab
ku taageeray lagu eedeynayo iyo ninkii al-shabaabka ahaa oo dawladda ka mid noqday difference-ga reer galbeed ku dhaxeeya adinku kala goosta waxa kale oo jira shirkadii la oran jiray albarakaad ee horey loo xiray ee lagu eedeeyay inay argagixisada ay finance gareyn jireen ee horey loo xiray ee Soomaalidu ay lahayd wixii loo xiray waxay ahayd argagixisa mataqaana ayay taageereen ama dhaqaalaha ay u dhaxmaraan ayaa loo xiray ka warrama hormuudi dahabshiil oo maanta inta la ogyahay inay dhaqaalo badan akoonti ah ee al-shabaab uga xiran yihiin ma reer galbeedku xiraan may firis garayaan bangidaasi may qabtaan lacagahaas may istaajiyaan meel bay lacagahaas yaalaan lacagaha bangi salaama yaala Mareykanka waa laga bixi karaa lacagta Mareykan baa looga diri karaa xagga raalli bay ka yihiin transferka waa la ogol yahay lacag baa laga bixi karaa heshiis bay leeyihiin waxba dhibaato kuma qabaan waana la og yahay inay al-shabaab lacag u taala may qabtaan waxay ku tusaysaa marka dhaqaalahooda inaysan qabanina inay raalli ka yimaadaan muujinaysaa finally hub casri ah haystaan waxaan aaminsanahay haddii reer galbeedku ay dhab ka tahay in al-shabaabka la dagaalamaan magaalooyinka ay haystaan hal maalin bay drones bis ku layn karaan waxa waxay magaalada joogaan hubka ay haystaan iyo ability-ga leeyihiin hadday doonayaan inay naga caawiyaan hadday doonayaan inay laayaan hal maalin bay layn karaan one single day bay layn karaan awooddaas u leeyihiin laakiin ma doonayaan maxaa hortaagan adigu isweydiin hortaagan marka dhanka markaad ka fiirso waxaa arkaysaa reer galbeedku raalli kama ah dagaalka lagu jiro al-shabaab inay dalka qabsadaan in kala shuqul kuma ilaha soo marka Soomaaliya halka ay ku socotaa Ilaahay baa garanaya laakiin meel qurxan ma aha dawladnimadii halkaas la geeyay nimankaana waxa ka dhax muuqata inaysan al-shabaabka ay sidiidaneen Soomaalidiina waa mid la xasuuqayo ma garanaya marka halka loo soo intaasaan ku soo koobaya bal fikirkaaga nagu soo biiri halkay Soomaaliya u socotaa waa maxay aragtida ku baxday fadlan fikirkaaga la wadaag aragtada haddii aad aragto muuqaalku muhiim yahay la sii wadaag walaalaha Soomaaliyeed intuu dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay nabadino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.